xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Kore oo ahaa mas'uulkii hogaaminayay wafdigii shalay ay ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Puntland ay ku qabsadeen duleedka degmada Taleex ayaa ka hadlay dhacdadaasi sida ay u dhacday isagoo tilmaamay in qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedka Puntland ay weerar ku soo qaadeen isla markaana ay afduubeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sool oo ku wehelinayay safarkiisa wuxuuna tilmaamay inay ahaayeen wafdi markaasi shibil ah kuna socda deegaankooda isagoo ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa anagoo u sii socono oo aan wax ciidan ay jirin dad civil servant shaqaalaha badan iyo anigoo xildhibaana waxaba yaraatay ciidana oo aan wadanay ma jiro deegaankaanu dadka aanu wada soconayna waxay deegaanka Taleex bay ka wada tirsan yihiin dhamaantood ayaa sidaasi dadkaasi noo galeen wado meel toway noo galeen dadkaas qaybna waa laayeen qaybna waa qabteen technical aad u badan ilaa 7 ilaa 8 gaadhana way haysteen operationka ugu weyn meel Allah cadawga u sahlay in uu sidaa wax u dhacaan shirkadda Golis baa ka qayb qaadatay kamana saaraya meel Taleex ku jiro waxa weeye ninka madaxweyne ku xigeenka ay bari gaadhadiisii baa u badnaa raga laayay raga ee xasuuqay ninka madaxweyne ku xigeenka sheeganaya ina cali shire ayaa ugu badan waxay arrintaasi isu rogi doontaa inay noqoto inaan anigu iska dhigo dharka cad anigoo garab iyo gaashaanba ka filaya qaranka iyo bahweynta Soomaaliya geesta kalena gudoomiyaha gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali Xaaji Jeeniyare ayaa ka hadlay hawlgallo ay ciidamada bileysku ay sameeyeen kuwaas oo ay ku soo qabteen dad uu sheegay in ay ka dambeeyeen falalka amni darro ee ka jiray magaalada Laascaanood wuxuuna tilmaamay in baaritaanno ay sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada Laascaanood ay ku soo heleen dadkaasi sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ku soo qabteen walxaha qarxa kuwaas oo ay dhawaan u soo bandhigi doonaan warbaahinta waxa ku xiga oo aan wali soo bandhigin oo yaraan soo bandhigi doonaa waxa weeye xabiis dhammaan qabanay oo wareyshinada dadkii fulinay dadka leen jiray ahaa iyo qalabadooda wixii hore aan soo bandhignay wixii ka dambeeyay waxaan qabanay ragii aktarada ahaa ee kuwii hore aan qabanay madaxda u ahaa iyo wareyshinada fulinay gacantaan ku dhignay ilaahay waa nagu guuleeyay waxa kale oo ilaahay nagu guuleeyay askartii bedelka ahayd ee al-shabaab ahayd ee laga soo diray koonfur ee sida qarsoodiga aragtay ku soo galaan caasimada gobolka Laascaanood iyagana ilaahay waa nagu guuleeyay 9 baad noo xiran waxa kale oo aan ku guuleysanay oo maanta qabana anagoo soo bandhigi doona guri ay qalabkii ku sameeyeen qalabkii qarxiyaha sida kamaanadii garaydadii meeshii wax ku cuni jireen ma garatay taan ilaahay waa nagu guuleeyay Cabdiraxmaan Cali Ducaale telefishinka caalamiga ah ee Home Cable magaalada Laascaanood